waxay nagala soo qayb galay shirweynaha maalgashato badan oo aan rajaynayno inay Soomaaliland geliyaan maalgashi weyn sanadka soo socda oo lagu qiyaasay wax ku dhow 400 milyan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka inagala soo qayb galay xafladda madaxda shirkadaha madaxda ka socota shirkadaha maalgashiga madaxda ka socota dawladaha maantiin subax wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasheen shirkan inoo socday labada cisho ee ka dhacay magaalada Hargeysa shirweynihii koowaad ee macdanta iyo tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2025 shirkan labada cisho inoo la socday waxay inooga soo baxay oo la isku qaatay waxyaabo badan oo ay isku muhiimsan tahay in aan joogteyno shirkan oo aan qabanno sanadka soo socda insha Allah shirweynaha labaad ee carwada macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland in Jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhiso laab casri ah oo kamid ah laababka ugu waaweyn ee qaaradda Afrika isagana heshiiskiisu gabagaba inoo marayo in aan kor u qaadno oo aan ka dhigno siyaasadaha iyo regulationada macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa ugu transparentsan ee ka jira wadamada horumaray iyo qaaradda Afrika in aan formalize karayno oo dardar gelino garab raratada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dhiiri gelino inta baro kor loogu qaadayo xirfadda macdanleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jaamacadaha iyo shaqaaleynaha macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland aan iyagana kor u qaadno inaan hirgelino maxadka barashada cilmiga macdanta in aan dardar gelino ciidanka ilaalada macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanadaas baa ugu waaweynaa intii shirku inoo socday waxyaabahan isula soo qaadanay waxaan kaloo saxeexnay heshiisyo waaweyn oo ugu horeeyay heshiiskii maamulka kadastraalka macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu xalay heshiiskaasna saxeexnay insha Allahna aan hirgelin doono 2026 waxay nagala soo qayb galay shirweynaha maalgashato badan oo aan rajaynayno inay Soomaaliland geliyaan maalgashi weyn sanadka soo socda oo lagu qiyaasay wax ku dhow 400 milyan. Dhammaantiin mar labaad waxaan idinka mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen waxaan idin rajaynaynaa sanad wacan iyo sanadkiisa shirka weyn inaan ku qabsano Jamhuuriyadda Soomaaliland. I would like to say a few words in English. Our distinguished delegates, our esteemed investors, the representatives coming from different countries and our friendly friends, ladies and gentlemen, good morning. The Minister of Energy and Minerals would like to thank you for coming and participating in this expo, and we wish to welcome you again next year, 2025, which will be the second Somaliland Mineral Expo. We wish you happy holidays and happy new year and safe journey. And thank you once again. I'd also like to say some few words to our Chinese friends. 各位朋友们，各位领导，各位的公司的领导，欢迎到索马里兰的矿业大会，早上好。我们非常感谢你们参加我们的矿业大会，还有我们非常感谢你们，谢谢你们。好。